بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوا برامجكينا maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala saameynta uu leeyahay sigaarka waliba adigoon isticmaalin oo adu ah qofka aan isticmaalin aan ahayn inta badan waxaan dhacdaa dadka sigaarka cabaya inuu agacabaan oo agtayna ku cabaan sigaarka laakiin dadku inta badan ma oga saameynta ka dhalan karta haddaba waxaan doonayaa maanta saameynta ka dhalan karta caafimaad ahaan iyo khatarta ay leedahay in sigaarka lagu agacabayo raali ka noqoto oo aad ag joogto sida caadiga xaaladda noocaas waxa loo yaqaan second hand smoker ama waxa loo yaqaan passive smoking ama environmental smoking oo ah in agtaada lagu cabo sigaarka kadibna aad ahaato qof raali ka ah oo ag jooga qofkii qatarta ugu weyn waxay gaarsiisan tahay ama halista ag jooggaadu wuxuu gaarsiisan yahay in walxa kiimikaal oo ku jira sigaarka aad jiido iyo xataa qofka neefti oo dib u soo tufay markaas oo sababkaasi toos u saameeyaan waxaa la sheegaa in saameynta cabista sigaarka qofka isticmaalaya iyo aduguba aad isku mid ka tihiin waxaa la sheegaa oo cilmi baarisada qaar ay sheegayaan oo WHO kale ay sheegayda in sanadkii wax ku dhow 7,000 oo ay u dhintaan sabab la xiriirta kansarada ay u sababo walxaha kiimikaal ee ku jira sigaarka sidoo kale 33,000 ayaa la sheegay in u dhintaan cudurrada wadnaha kuwaasi oo saameynta inta badan ay ka timaado sida la sheego isticmaalka sigaarka oo dadka inta badan sigaarka isticmaala ayaa u nugul inuu ku dhaco cuduradaas marka 33,000 lambar yar ma in sanadku geeriyoodaan dadkaasna waxa qayb ka ah dadka aan ayagu sigaarka soo iibsan raalina ka inay cabaan laakiin lagu gacabe haddaba sigaarku wuxuu ka kooban yahay walxa kiimikaal kuwaas oo keenaya ama saameynta tirada badan ee qofka in kasar uu ku dhaco ama wadnihii cudurada ku dhici jiray yacni in ay ku dhacaan waxa keenaya kiimikaaliskaas waxa ugu muhiimsan kiimikaal maadada la yiraahdo benzene oo ah maado laga helo shidaalka butane oo ah maado kale oo dabka bixisa oo maado dabka bixisa oo abuurta holaca ah ammonia oo ah maado loo isticmaalo nadaafadda ama waxa nadaafadda loo isticmaalo toluene oo ah maado loo isticmaalo in rinjiga guryaha la marinayo lagu jilciyo sidoo kale cadmium oo ah maado ku jirta bakteeriyada formaldehyde oo sidii cayaar laga wada yaqaan oo ah maado preservativeska oo waxba gasacaysan inay isbedelin si aysan isu bedelin mantaqa lagu shubo xanuunada uu keeni karo sigaarka qofka caba oo ku imaan karo waxa kamid ah cudurrada ku dhaca wadnaha sida dhiig karka xeedada oo xirma iyo sidoo kale sudden cardiac death ama dhimasho degdeg ah sidoo kale kansarka sanbabada ku dhaca iyo naasaha ayaa la sheegaa ama inta badan la arkay in dadka sigaarka caba oo ay yacni develop garayaan ama ku yimaado sidoo kale neef qabatin ama neef inuu qofkii ay ku timaado haddii uu qabana ugu sii darto ayaa inta badan xaalada la arka ka mid ah sidoo kale waxay saameyn kartaa sigaarku wuxuu saameeyaa caafimaadka reproductive-ka ama wax soo saarka sida caadiga hooyooyinka uurka leh wuxuu ku keeni karaa ilmo yar oo miisaankooda hooseeyo inay dhalaan ilmaha yar waxaa ku dhici kara neef qabatin ama asthmatic attack sidoo kale waxaa ku dhici karta dhimasho degdeg ah oo loo yaqaano sudden infantile death syndrome sidoo kale burburkeetada iyo wuxuu ku keeni karaa in cunugii uu ku dhaco pneumonia waa muhiim inaad ka fogaato naftaada ka baasato saameyn ka imaan karta wax aad u aadan isticmaalin oo ah cabitaanka ama cabista sigaarkaas oo aadan raalli ka ahayn xataa marka inta ay ku soo koobeyna barnaamijkeena insha Allah taala caafimaadkaada wax kasoo ka muhiimsan yahay in sigaar lagu agacabo aad noqoto second hand smoker aad iskaga ilaali insha Allah taala shariicaduna ma ogola ogtiin sigaarka iyo saameyntiisa waxas ma ogola oo shariicadu nafta ay ilaalidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aad buu mataqaanaa arrimaha noocaasna nooga digay in la isticmaalo muqaadaraadka wax lamid ah dadkana ka dhiirigeli adiguna isaga fogow insha Allah tacaala caafimaadkaada ka taxadir kansar iyo cudurro ku dhaca wadna iyo balaayana ilaahay naga ha insha Allah tacaala intaas ku soo koobeyna barnaamijkeena. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.